soo dhaweynta wafdiga ballaaran ee Britain nagu soo wajahan musharaxu waa lagu faanaa halkan oo xarunta guud ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Berbera ayaa waxa ka socotay diyaar garow iyadoo saacaduna ay tahay 9 habeenimo waxaana dadka halkan jooga u diyaar garoobayaan in maalinimada berri ay soo dhaweeyaan murashaxa xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo wafdiga la socda waxaana halkan ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan waxaana fariimo u direen shacabka ku dhaqan gobolka Saaxil ee taageera xisbiga wadani in ay ku soo dhaweyno berrito hadii Ilaahay raali ka noqdo musharax madaxweyne waqtigiisu kooban yahay hadii Ilaahay raali ka noqdo sida ugu dhaqsaha badan aynu jecelnahay inaynu kursiga u saarno Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo mas'uuliyiinta kale ee la socday madaxweyne ku xigeenku kamid yahay oo gudoomiyuhu kamid yahay iyo dhammaan gudoomiye ku xigeenada la socda aad iyo aad baan doonayaa inaynu berrito hadii Ilaahay raali ka noqdo hawsha reer Saaxilow waa layna eegayaa meelo badan baa laynaga eegayaa inaynu soo dhaweyno gobolka oo dhanna waxaan leeyahay gobolka oo dhan war kulliba nin baa soo dhaweyn jirteene kii gobolka u dhashay ee iskuulka hoose kaga baxay ee dugsiga hoose kaga dhaxay ee secondary-ga ka baxay ee magaalada u dhashay baynu soo dhaweynaa waa mid sideena climate-ka inala dareemayaynu soo dhaweynaa Britain insha Allah Abdullaahi Kariim maalmo muujiyay in ay xisbiga wadani ee rajada shacbiga oo danaynaya climate-ka Berbera iyo duruufaha Berbera ka taagan ee dhalinyarada iyo haweenka shahaadada guryaha la fadhiya ninkii shaqo geynayay ee mashaariicda u furayay ayaanu berrito soo dhaweynaa madaxweynaha mustaqbalka waxa yaru harsan yihiin soo dhaweynta musharaxa iyo musharax ku xigeenka xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani iyo wafdiga ballaaran ee hogaaminayaan ee aroorta ku soo wajahan ee magaalada Berbera iyo guud ahaanba gobolka Saaxil ee aad baan runtii ugu mahadnaqayaa daladaha insha Allah waxaan rajaynayaa daladahaasi muuqaalkii ay maanta lahaayeen markaan ugu tagnay xafiisyada ay aad iyo aad runtii u buuxeen ee dalad walba dalada kale aanay ka dhacahayn waa laga maarmaan inaynu cudud muujinaa waa laga maarmaan isbeddelku inuu jaaheena iyo sida duruuftu layna baday wajigeena uga muuqato raynta isbeddelka isbedel doonka iyo yoolku waa inuu wajiga uu ka muuqdaa berrito waxaynu ugu soo beegan 9 subaxnimo haddii aan laydmo madaxweynihii mustaqbalka ee qarankan waxaanu idin faraynaa dhammaan daladaha halkan kala hadlayo iyo dhammaan magaalada iyo wadada oo aan ka soo bilaabi doono hadduu alla dhubato ilaa iyo Berbera wuxuu soo mari doonaa Tacarbuluq wuxuu soo mari doonaa Abdaal wuxuu soo mari doonaa Lafaruug wuxuu soo mari doonaa Xamaasi Dargolle wuxuu soo mari doonaa Xabaalo Tumaalo wuu soo gaari doonaa hadduu alla yiraahdo waxaanu doonaynaa dhammaantiin inaad nabadgelyada la ilaalisaan ciidanka nabadgelyada magaalada Berberi ma noqon doonto mid markasta ololaheeda lagu galo leerkan jabin doona ama percentage baanu aan leerka yareyn doona oo kuwa dhalinyarada fartiina ku ciilbeelo hiishada adduunka dumar baa waxa baabula dumar baa fartooda ku ciilbeela midna waan idin sheegaya Cabdiraxmaan Saaxil buu dhashay waa nin reer Saaxil ah ninka reer Saaxil marka idinka la idinka difaacayo miyaanay masiibo ahayn naasheeka calaan castan haray u soo rogtay dagaalo sokeeyo uga riday mar dambe yaana sheeka calaan casad ku soo noqonay sheeka calaan casal baabkada iska xidha ilaahay musharaxoodii gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo hoggaanka xusbiga oo la socda oo inagu soo aadan ama inagu soo foolle maalinta berriya sida aad soo abaabusheen ee heer caalamiya muxuu ahaayay aad baa ugu mahadsantihiin waxaan sar rajaynayaa in berri ay muxuu ahaayay ka sii sarreyso sida ay caawa isu abaabusheen waxa inoo balana berrito gobolku inuu u quuskooyo oo uu tuso quwadiisa iyo awoodiisa taasoo ka soo bilaabmi doonta dhubato kuna imaan doonta qoyta insha Allah waxaan leenahay ku soo dhawow dadweynaha reer Saaxil aad iyo aad baa mahadsantiin aad baan ka mahadnaqaynaa dadaalka gasheen leeyahay reer Berberow waa arkayseen Boorama iyo gobolka Awdal sida loogu soo dhaweeyay waa arkayseen gobolkii cagaarnaa ee Gabiley sida loogu soo dhaweeyay waxa la inooga baahan yahay maadaama uu gobolkii u dhashay Cabdiraxmaan yahay inaynu labadaba ka hormarro murtida curiyo humiisa mudane cebe soo dhaweeya madaxa saarto midooba maqalka dhigihiina siiya dadku ma aha kii shalay midho dilay sidoodii duuduub ku luqa jiray dadku ma aha kii shalay waxay dib u eegeen maanta lagu degi jiray
marka waxaan leeyahay dadku waa isbedelka annaga u baahan cabdirasaaq qaasin telefishinka saab berbera